Assalaamu calaykum, waa idin salaamay. Kusoo dhawaada another vlog. Anigu aaday Aqua Floria. Waa shopping mall asagana aad u qurux badan. Haddaan tareenka ka degay oo haddaan u socdaa meesha. Wax biiga ma xigto insha Allah bidnillaahi kariim. Vloggeena meesha kasii wadan doonaa. Subscribe-ta u saara hore iyo like insha Allah. Waa idin salaama. Waan imaaday waatana building-keeda insha Allah bidnillaahi kariim gudaha isku daya inaan hore u sii galo. Daawasho wacan. Okay, meeshaan waa gate meesha dadkaas ku buuxaan ujeedin waa gate-ka ama albaabka laga galaayo waaye gudaha usii galay. Finally gudaha usoo galay gudaha idin soo duuba insha Allah ilaa dhinaca waxay leedahay baday leedahay aan isku daya inaan aado marka daawasho wacan. Actually mallka dhexdiisa waxaa ku yaal dukaamo aad u magac weyn ama title weyn wato ayaa ku dhex yaalo waan awoodi waayay inaan each by each idinku sheega magacyadooda si u badan yihiin ana ku dabaqay marka branch ay ku leeyihiin company kasta almost oo dhar gada ama kabo gada ama anything other than that gado oo adiga shopping ah way ku dhex yaalaan meesha magacyadoodan kama gaari kari kulli looga hadda u jeedo maleena marka meeshan aad u weyn tahay oo u qurux badan tahay mallka si fiican loogu shaqeeyay marka daawasho wacan kulli daawashadu baad idinku maaragtay idinku in soo duubi karaa on idima soo codeyn karo yani each by each dukaanka magaciisa uma sheegi kari marka saas oo loo soconaysiin. barxadda banaanka ama dibadda ugu soo baxay xagga waxaa waaye meelaha oo wax laga cunay ama cafeteria-da ama restaurant-yaasha wax laga cuno waaye restaurant-yaal kale way jiraan xagga sare laakiin xaggan waa meesha banaanka oo hawada lagu qaato waxna lagu cuno badda xaggaas ka xigto actually meeshaan view-ga laga daawadaa banaanka oo maaragtay badda laga daawadaa meesha barxadda waa la buuxiyaa galbihii saas waaye dhinacan kale markaa imaaday waxaa joogtay gabar Soomaaliyeed live ku jirta xaggaas ee kaga daawanaysa intaas waaye. actually meesha aad u qurux badan yahay jawi macaan maaragtay waaya building-kana waa kana waxa ka sarana kusoo duubay actually odaygana waa kana hadda sii socdaa meesha waa barxadda oo lagu aalmintay ama dadka waqti ku qaataan walking-ka ama baaskiilada wax ku wadaan ayaan tagay waa kana meeshan dadka ka socdaan baaskiilada laga kreystaa oo la wadaa dhinacna badda ka xigto casar waa galab oo qoraxdu sii dhacayso adiga waa aniga waxay noo hal saac camal inoo ahayd habeenimo laakiin casar u egta xaggan waa kana hadhkaygana marka baashaal baaskiilada lagu kaxeeyaa ilmaha maaragtay qofka soo wata waalidka ayaa meesha ku baashaalaan meeshan dhagaxiinta waa lagu nastaa waa la fadhiistaa badda xaggaas laga daawada ama qof soo wadanaysa meesha ku sheekaysanaysiin labadiina waxaa cuni kasta soo qaadanaysaa xaggaas ka fadhiisanaysaa view-gana xagga ka daawanaysaa gabdho kale Soomaaliyeed noo kuwaas ayay meesha daawanayeen waa kana view badda saasaa badda u daawanaysaa oo intaa fadhiisatid waxaa cunaysid cuntid maaragtay saas u daawanaysa dadka dhan meesha laba u socdo soo jeedid 2x2 waa marka jawiga xaggaas ka qaanaysa bishan xaggaanan ka arkay aas ka daawanayo marka waa kana daawasho wacan insha Allah bidnillaahi kariim habeenay gaartay marka inaan sii xaroodo oo mallka gudaha usii galo ayaan ku dhowahay waayo inaan sii galbado xaafadda sii aado waayo marka meeshan ka daawanayay anigana warwareegay xogo after that gudahan gala insha Allah bisha
actually gudahaan soo galay waa ujeedin meesha aad u qurux badan tahay jawigeeda malaay oo maaragtay gacan ku sameysa xaggan yaalo maaragtay wiilkaas qofkaas oo horsada hala yaabina waa wiil ila socdo oo dheereeyo socodkiisa xoogoo iga hor ordo waayo meesha laakiin extremely quruxan ku dhaca nalalka iyo decorationka loo sameeyey iyo maaragtay the way ay u naqshadeeyeen waa amazing waa another level marka insha allah aan u rajeynaya dalka inuu saan u dhismo waa iska jeclaan lahaa malaayga 2 meel u yaala 4 meel camal u yaalaa waa kan mid kale waa kan hadii sida u dhisan tahay meesha ama decorationkeeda ama sida meesha loo kala reeyay marka ama mutulada kala dhigay magacyada sida loogu maaragtay loogu xardhay aad ugu dhahay bismillah waa lagu fari yareystay marka we pray to god ilaaha baryeena anaga inuu wadankeena sida isaga qurux badan nooga dhigo insha Allah waxaan isku dayaa inaan aado xagga sare ayaan rabaa inaan sii fuulo oo meelaha gameka lagu dheelaayo inaan sii tago maqaayadaha idin sheegaya McDonald's waa kan iyo KFC iyo meelaha ku yaala ayagana dhinaca kale kor idin sheegaya waa kana korkoodan sii aadaa marka gameka sii aadaya meesha gameka haddana maaragtay wax yar kasoo duubi doona insha Allah bidin laakiin idin tusaayo marka daawasho wacan meeshan decorationkeeda aad looga helo dadka kama tagayna kala sawirayay decorationkeeda aad u qurux badan yahay iyo maaragtay bahal yaro waxa ku xiran Rino waa kana gudaheeda meesha decorationka idin sheegay waa xaggan aad u qurux badan qofka soo dhaxgal kama dhax baxayba uu jeclaanayo gudaheeda anaga tacabar oo ku jira kama dhax bixin ilaa kor iska dooso u jeedin ay qurux badan tahay xaggaas korna waa muraayad meesha meel shidan eednayo waa ka sabab si degaya meeshii food court-ka imaaday bis hore u sii degaya waayo waa dhameystay wixii aan duuban karo gameki iyo ay nooc waxaan u baahnaa waa soo duubtay vlog waa soo dhameystay xaggaan aan soo gabagabeynaa vloggeega insha Allah bin la karim waxa inoo balan haduu ilaahay noo yeelo ama noo idmo inaan maartay vlog kala soo diyaariyo insha Allah bin la karim xaggaas ku joojinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh